waxaan rabaa inaan halkaan ku bilaabo inaan hambalyo iyo mahadcelin u jeediyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo golaha deegaanka ee degmada Cadaado oo maanta ay munaasib ku tahay in halkaan loo duceeyo lalana dardaarmo hambalyadooda runtii insha Allah taala waxay iman doontaa hadii Ilaahay uu na gaarsiiyo maalinta munaasabad sidan oo kale ah ay xukunka ku wareeji doonaan waxay mudan yihiin in loo duceeyo waxaan kaloo u mahadcelinayaa bogaadinayaana dawlad goboleedka Galmudug ee madaxweyne Qoorqoor ugu horeeyo iyo si gaar ah wasiir Cabdiwaayeel iyo wasaaraddiisa dadaalka ay ku bixiyeen in halkaan la soo gaaro oo runtii aan xogaal u ahay culayska iyo eedaha iyo shaqada badan ee laga soo maray aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin madaxweyne adiga iyo wasiirkaaga iyo dawlad goboleedka Galmudug guud ahaantiin sidii aad hawshan weyn ugu dhabar adeegteen iyo sidoo kale ciddii maamulka ka taageertay arrinta waxaan rabaa runtii mahadcelinta ugu weyn oo ugu mudan halkaan inaan uga jeediyo duubabka dhaqanka ee degmada Cadaado runtii waxa jira oo adduunyada la yaqaan wax la yiraahdo diljirka dahsoon waa ciidamada aan la aqoon ee ku dhinta dagaalada ee guulaha keena waxa degmada Cadaado ka suurta galay ee halkan ay ku soo gaartay xikmad weyn ayaa ku duugan wax si sahlan ku yimidna ma aha horumarka laga sheekeeyay ee degmadan ay ku suntan tahay waqtiga badan soo jiray waxa jira maskax qarsoon oo miisaan weyn leh oo ka dambaysa waana odayaasha iyo duubabka deegaanka waxaan leeyahay waad mahadsantihiin mar labaadna waad mahadsantihiin mar saddexaadna waad mahadsantihiin sida aad tusaale wanaagsan u tihiin waxaan kaloo u mahadcelinayaa bulshada ogolaatay in ay hirgeliyaan oo ay raacaan aqliga wanaagsan iyo talada wanaagsan ee odayaashoodu ay ku arrimiyeen haddii odayaashaasi aanay heli lahayn bulsho ku kalsoon oo ka dambaysa oo talada iyo isu tanaasulka iyo walaaltinimada iyo is ogolaashaha ay deegaankooda iyo dadkooda ku horumarinayaan oo midnimadooda ku ilaalinayaan bulsho u hoggaansanta halkan may soo gaareen odayaashu marka bulshada Cadaado ee ogolaatay maamulkooda ee runtii ku sifoobay calaamado badan oo dawladnimo oo halkan Dr. Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo muxuu ahaa Suldaan Cabdisalaan iyo dadka kale ay ka sheegeen waxaan leeyahay idinkuna aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waan idin mahadcelinaynaa inta ka soo waxaan rabaa inaan halkan idinku soo gaarsiiyo hambalyo iyo salaan aan idinkaga wado madaxda qaranka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waa ogsoon yihiin munaasabadan wakiilashadooda iyo diristooda ayaan halkan ku joognaa waxayna weydiisteen inaan idin soo gaarsiino salaantiina iyo sida ay idinkugu hambalyeynayaan in shaqada aad qabateen ay tahay tiir weyn oo kamid ah mas'uuliyadda madaxweynaha loo dhaariyay iyo midda ra'iisul wasaaraha loo dhaariyay oo aad ku gacan siiseen sababtoo ah qof kasta oo Soomaali ah oo wax yar oo wanaagsan naftiisa u qabta wuxuu gacan siiyay madaxda qaranka ee loo dhaariyay in ay mas'uuliyadda qaranka gutaan waxaan kaloo rabaa inaan idin soo gaarsiiyo cudurdaar iyo salaan aan idinkaga wado xildhibaanada iyo wasiirada deegaankan si gaar ah ugu matala dawladda federaalka oo safarro iyo duruufo gaar ah oo haysta awgood iyo shaqooyin ay ku jiraan ay u suurtageli weysay inay munaasabadan yimaadaan balse jeclaa in ay halkan yimaadaan marka wakaaladooda anigoo ku hadlaya cudurdaarkaas ayaan idin soo gudbinayaa in aad aqbashaan insha Allah taala waa idinka rajaynayaa waqtiga waa gaaban yahay waxaan insha Allah taala jeclaan lahaa inaan halkan uga soo jeediyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka dardaaran aan aaminsanahay runtii inay ka dhan yihiin oo ay fahamsan yihiin oo ah waxa loo dhiibay inaanay ahayn wax sahlan waxa loo dhiibay inaanay ahayn wadooyinka iyo guryaha waxa ugu weyn ee dadka reer Cadaado ay haystaan ee Soomaali ay ku taqaano waa midnimo waa tala wadaag waa wada joog waa walaalnimo waa wax wada lahaansho taas ay ka dambeeyaan horumarka iyo waxa laga hadlayo Soomaaliya waxa ay weysay
وتوفيق إيسو قلانشو وحال كان يلا هنا واتاس وحن ذكر جينا وحوين إن النقدان إن عددك أنت سئل على لسان وحي نبدو ذكو إلى شدان وجوين واتاس وحي ماشان كسو قارين وجوين واتاس وحسلوني ذا يوديك يوالتين ماذا وحن رجينا بإذن الله الكريم إن أي تاي شقة وجوين يقدوميها يقدومي كحجين كوتالا إن مالنت وقت جود ودماده أي صورة قلين دونان iyagoo kaashanaya dawladooda galmudug iyo dabcan wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda federaalka iyo dadka kale u baahan yihiin in dadka magaaladan degan ee shacabka ay kaarar qaataan oo qofka ay rabaan meeshii hadda odayaashu ay ka soo xuleen codkooda ay ku soo doortaan insha Allah taala halkaas ayaa horumarku naga jira waana meeshaas meesha weyn oo aan u soconno oo ay tahay dhamaanteen inaan gaarno inta ka sokow waxaan rabaa inaan waqtiga kooban awgeed hadalka soo gabagabeeyo labo muxuu ahaa orahoodo yaryar oo iska kaftanaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo mid waxay ku saabsan tahay arinta lagu soo celceliyay ee bisada iyo jiirka oo dabcan reer cadaad ay caanka ku ahaayeen maadaama aan odayaashii iga dambeeynin iyo dadkii kale wax dhihi lahaa waxaan u maleynaa in aniga idayatay marka taasaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo bisada iyo jiirka horta marxalad bay ahayd marxalad adag bay ahayd sababta loo kala ilaaliyana waa taqaaniin waa iscunaa bisadaana badanaa wax cunta oo waxa magangeliyada loo wadaayo waa jiirka marka jiirkii halkan lagu hayay iyo meelahan ku noolaa isaga damcay inuu bisadii cuno markuu damcay inuu bisadii cunana wixii baxda ka dhacay ayaa jawaab u ahaa marka horta waxaan rajaynayaa qofka cadaaday yimaada jiir dambe iskama ilaalin doona bisadoona iska jiro taasaan ka leeyahay xildhibaanad Canab xoogaa yar ugu tuurtay hawl la hooyo kara ma ahayn wax laga yiraahdo waay marka taasna waxaan ka leeyahay anagu horta waxaan ognoon ka soconaa dawlad la yiraahdo Soomaaliya heshiis dunidana la heshiisa dawladdaas intaan magac bixinta la bixin ragga meesha u badan waxa la dhigi jiray waxa ka soo bilowdan bajaaj ay saaraay rag kooban ay ahaayeen markii dambana bas ay isku bedeleen markii ugu dambeysana waa ogeedeen oo tareena laga dhigay saddexdoodaba xigmadaha ku jireen tareenka bajaajka waxa la yiraahdaa magacyo kale ay leeyahay oo kooban oo laba xaraf ka badnayn markii dambe baska loo bedelay oo sanadii la soo dhaafay oo madaxweyne qorqor iyo rag badan oo kamid ah hawl culus hayeen waxa loo bixiyay bas oo xogaa ciidan ay u baahatay colka bad markii dambe hadda xaaladii sidii la rabo noqotana tareen ay isku bedeshay tareenka marka macnihiisu waxay tahay wixii oo dhan isla saaran qofkii ka dega baa ka maqan marka waxaan leenahay hadda baska hadii laga dego war baska uu ka tegina soo fuul meesha waa ku jiraysaa laakiin yaan laga degin waa mahadsan